Agaasimihii madaxtooyada Soomaaliya oo is casilay. Maxay tahay sababtan uu isku casilay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya? Ka ogtahay xogtan? Muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco. Aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu is casilay agaasimihii guud ee madaxtooyada Soomaaliya, Mudane Xuseen Sheekh Maxamuud, kaas oo xilkan hayay tan iyo 23 May ee sanadkii 2022. ila wareedyo xilkasa ayaa warbaahinta u xaqiijiyay is-casilaadda agaasimaha, kaas oo warqadda u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in is-casilaaddiisa ay la xiriirto arrin shakhsiyan ah, sida ay ka soo xignay ilo ku dhow villa Soomaaliya. sidaan xogta ku helnay, Sheekh Maxamuud ayaa isku casilay arrimo la xiriira damaciisa siyaasadeed xilka madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed. Ninkan ayaa loo badinayaa inuu soo shiro xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo dhawaan la qaban doono, walow ay dood xoogan ka taagan tahay xilliga doorashada. Xuseen Macalin ayaa ka mid ah saaxiibada aadka ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna xubin firfircoon ka yahay xisbiga UPD ee madaxweynaha. Sidoo kale wuxuu door weyn ka qaatay ololihii dib u doorasho ee Xasan Sheekh oo ku soo baxay doorashadii 15 May ee sanadkii hore, kadib markii uu ka adkaaday Farmaajo. kadib Xuseen oo markaasi shaqo la'aan ah maadaama uu waayay kursigiisa senator, ayaa waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada oo haatan iska casilay. Agaasimaha intuu xafiiska joogay wuxuu hormuud u ahaa howlo siyaasadeed oo muhiim u ah dowladda, gaar ahaan heshiisyadii taariikhiga ee golaha wada-tashiga qaran. Si kastaba, ninkan ayaa haddii uu ku dhawaaqo musharaxnimadiisa wuxuu ka mid noqon doonaa ragga ugu cadcad ee musharaxiinta Koonfur Galbeed, maadaama uu ku dhow yahay madaxweyne Xasan Sheekh, sidoo kalena uu taageero weyn ka heli karo villa Soomaaliya. Haddaba agaasimahan ayaa shaqadiisa iska casilay u hayay dowladda, waxayna ahayd shaqo firfircoon oo wax weyn ugu qabanayay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana haatan la rajeynayaa inuu isku soo sharaxo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, maadaama ay dhowdahay waqtiga la qabanayo doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Inkastoo weli uu ka taagan yahay khilaaf xooggan oo u dhexeeya reer Koonfur Galbeed iyo madaxweyne Laftagareen, ayna isku khilaafsan yihiin mucaaradka iyo asaga sidii ay u qaban lahaayeen doorashooyinka iyo waqtiga la qabanayo. Haddaba khilaaf xooggan oo ka taagnaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa heshiis sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh iyo gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Aadan Madoobe, kuwaasi oo xaliyay xiisadda uuna baaqay markaasi in doorasho ay dhacayso, sidoo kalena mucaaradku ay tartamaan. Haddaba agaasimahan ayaa waxaa loo badinayaa in sababta ugu weyn uu xilka iskaga qaaday inay tahay inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed, walow asaga uusan sheegin, balse ilo ku dhow agaasimaha ayaa waxay sheegeen inuu rajeynayo inuu soo sharaxo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed. sidoo kalena waxa uu ka tirsan yahay agaasimahan xisbiga madaxweynaha ee UPD, waxa uuna door weyn ka qaatay dib u doorashadii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba haddii uu soo sharaxo agaasimahan oo u tartamo xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxaa markaasi dadka falanqeeya siyaasadda ay aad ugu aaneynayaan inuu ku soo bixi doono madaxtinimadaasi, maadaama uu si aad ugu dhow yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba agaasimahan ayaa si toos ah isaga casilay shaqadii uu hayay dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo haatan sheegay inuusan mar dambe ka howlgalayn dowladda federaalka, si toosana ugu laabanayo maamulka uu ka yimid ee Koonfur Galbeed. Agaasimahan ayaa waxa uu ka hanwen yahay inuu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Agaasimihii madaxtooyada Soomaaliya oo is casilay. Maxay tahay sababtan uu isku casilay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya? Ka ogtahay xogtan? Muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco. Aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu is casilay agaasimihii guud ee madaxtooyada Soomaaliya, Mudane Xuseen Sheekh Maxamuud, kaas oo xilkan hayay tan iyo 23 May ee sanadkii 2022. ila wareedyo xilkasa ayaa warbaahinta u xaqiijiyay is-casilaadda agaasimaha, kaas oo warqadda u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in is-casilaaddiisa ay la xiriirto arrin shakhsiyan ah, sida ay ka soo xignay ilo ku dhow villa Soomaaliya.
sidaan xogta ku helnay in Sheekh Maxamuud ayaa isku casilay arrimo la xiriira damaciisa siyaasadeed xilka madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed. Ninkan ayaa loo badinayaa inuu soo shiro xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo dhawaan la qaban doono walow ay dood xoogan ka taagan tahay xilliga doorashada. Xuseen Macalin ayaa ka mid ah saaxiibada aadka ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna xubin firfircoon ka yahay xisbiga UPD ee madaxweynaha. Sidoo kale wuxuu door weyn ka qaatay ololihii dib u doorasho ee Xasan Sheekh oo ku soo baxay doorashadii 15 May ee sanadkii hore kadib markii uu ka adkaaday Farmaajo. Kadib Xuseen oo markaasi shaqo la'aan ah maadaama uu waayay kursigiisa senator ayaa waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada uu haatan iska casilay. Agaasimaha intuu xafiiska joogay wuxuu hormuud u ahaa howlo siyaasadeed oo muhiim u ah dowladda gaar ahaan sidii taariikhiga ee golaha wada-tashiga qaran. Si kastaba ninkan ayaa haddii uu ku dhawaaqo musharaxnimadiisa wuxuu ka mid noqon doonaa ragga ugu cadcad ee musharaxiinta Koonfur Galbeed maadaama uu ku dhow yahay madaxweyne Xasan Sheekh sidoo kalena uu taageero weyn ka heli karo wiilka Soomaaliya. Haddaba agaasimahan ayaa shaqadiisa iska casilay u hayay dowladda waxayna ahayd shaqo firfircoon oo wax weyn ugu qabanayay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana haatan la rajeynayaa inuu isku soo sharaxo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed maadaama ay dhowdahay waqtiga la qabanayo doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Inkastoo wali uu ka taagan yahay khilaaf xooggan oo u dhexeeya reer Koonfur Galbeed iyo madaxweyne Laftagareen ayna isku khilaafsan yihiin mucaaradka iyo asaga sidii ay u qaban lahaayeen doorashooyinka iyo waqtiga la qabanayo. Haddaba khilaaf xooggan oo ka taagnaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sii sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh iyo gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Aadan Madoobe kuwaasi oo xaliyay xiisada una baaqay markaasi in doorasho ay dhacayso sidoo kalena mucaaradku ay tartamaan. Haddaba agaasimahan ayaa waxaa loo badinayaa in sababta ugu weyn uu xilka iskaga qaaday inay tahay inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed walow asaga uusan sheegin balse ilo ku dhow agaasimaha ayaa waxay sheegeen inuu rajeynayo inuu soo sharaxo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Sidoo kalena waxa uu ka tirsan yahay agaasimahan xisbiga madaxweynaha ee UPD waxa uu door weyn ka qaatay dib u doorashadii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba haddii uu soo sharaxo agaasimahan uu tartamo xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa markaasi dadka falanqeeya siyaasadda ay aad ugu aaneynayaan inuu ku soo bixi doono madaxtinimadaasi maadaama uu si aad ugu dhow yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba agaasimahan ayaa si toos ah isaga casilay shaqadii uu hayay dowladda federaalka Soomaaliya isagoo haatan sheegay inuusan mar dambe ka howlgalayn dowladda federaalka si toos ah ugu laabanayo maamulka uu ka yimid ee Koonfur Galbeed. Agaasimahan ayaa waxa uu ka hanweyn yahay inuu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.